isku soo noqdo waxaan qaybta meel walba joogto oo markay muuqaal cusub ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta kulamadii laga ciyaaray xalatooda qaaradda Yurub koobkii labaad UEFA Europa League ayaa la ciyaaray Arsenal ayaa lagu kala baxay tartankana laga saaray xilli rigoorayaal gurigooda lagu reebay nimankii Sporting Lisbon ayaana ku kala baxay xilli Aaron Ramsdale xalay laga dhaliyay gool qurux badan oo fantastic ah maxaa banaanka ku keenaya United iyo kooxda kubadda cagta Juventus oo guulo gaaray iskana xaadiriyay wareegga quarter finalka ee Europa League hadii aad muuqaalka hesho la garay kanalkan subscribe noo saara hadii aanu ku bilowno kulamadii xalaytooda laga ciyaaray UEFA Europa League nimankii shayaadiin xumro ah Manchester United ayaa booqday gegada Stadio Villamarin ee magaalada Ishbiiliya ee dalka Spain nimanku iyagoo 4 gool gegada Old Trafford ku soo adkaaday guul weyn soo gaaray ayay booqdeen cariga Spain gaar ahaan magaalada Ishbiiliya garoonka Real Betis ee ku ciyaartay Stadio Villamarin Erik ten Hag xirtooda way soo adkaadeen guul hal iyo eber ayayna soo gaareen nimanku labada lugba 5 gool iyo gool ayay kaga taqaluseen nimankii Real Betis xilli Manchester United xalay toole nimankii Betis ay kala kulmeen cadaadis laakiin say Manchester waxay haystaa Master Sefo David De Gea ayaa xalay wuxuu badbaadiyoodii marka Real Betis waxay rabeen inay nimanku mucjiso ama ku sameeyaan comeback laakiin Manchester waxa way diideen xalay toole ninkii Marcus Rashford ayaana dhaliyay goolka guusha ay 3 dhibcood ku qaateen United labada kulanna home iyo away u sabab ah inay nimankan garaacaan marka United-ka xalay gool iyo waxba ay ku adkaadeen wareeg xigana way iska xaadiriyeen ee Europa League quarter finalkiisa odayaashu marka waxay taagan dhugowga anaga ayaa daneynayna ee halas geena gegada Old Trafford kulamadii kale la ciyaaray waxa kamid ah kulankii ka dhacay gegada Fly Emirates xalay toole nimankii Arsenal waa lagu kala baxay waa lagu wax kale iyo rigoorayaal ayaa tartanka looga saaray xilli Arsenal wax walba ay sameeyeen laakiin waxa ku dhigay goolhayaan Andrean Aadan la dhahayo ninkan Sporting u ciyaara ayaa xalay ku dhigay wax walba ay sameeyeen ciyaartoydii Gunners-ka asiga ayaa diidayo Aadan badbaadin badan ayuu sameeyay ninku caadi maahan 7 badbaadin 7 save gareen oo unrealistic ayuu sameeyay oo xataa intuu badbaadi birta ku sii dhaceen xal Arsenal la kaga diiday nimanku waxay u qalmeen inay guuleystaan si nadiif ah ku adkaadaan marka kubadda cagtu mar walba adigu lama jirto marka qaarna way ka jirtaa marka kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon ayaa nimankii garaacday ciyaar ku dhamaatay gool iyo gool labada kulanna isku celcelis 3 gool iyo 3 gool xalay toole hadii jiri lahayd nidaamkii away goolka ah ama farqi goal difference away goolka Arsenal soo bixleed maadaama guriga Sporting ay 2 gool ku soo dhaliyeen sida ay ku soo bixi laayeen gurigood hal gool kaliya lagu dhali gool ku dhamaatay laakiin waxa meesha waa laga saaray xaniyaha kor bareejo walba ma extra aadiya marka nimanka extra la aad rigoorayaal la gaaray goolayahan ayaa mucjiso kabiir ku noqday kooxda kubadda cagta Gunners iyagu xataa Aaron Ramsdale qalad uu sameeyay gool fantastic waa laga dhaliyay banaanka soo wareegaya kubadda badanna wuu badbaadiyay asiga ruuxiisa Ramsdale laakiin Arsenal xalayto waxa u diiday inay soo gudbaan goolayahan ayuu ahaa marka ciyaartu waxay ku dhamaatay gool iyo gool labada dhinacba extra time-kii iyo xilliga caadiga ahnaantii xilli Granit Xhaka oo dhaliyay gool nimankaana labada kulan buu ka dhaliyay marka asiga ayaa ciyaarta daafuray laakiin se Granit Xhaka goolkiisa waxa loogu jawaabay gool aan caadi ahayn ninka lambarka 28 ee Pedro Gonzalez la yiraahdo ayaa wuxuu dhaliyay gool mucjiso ah gool laafay gool amaan jamaahirtii garoonka Emirates joogay mucaarad iyo muxaafidba ee la yaabeen konton yardi meel goolka u jirta ayuu ka togtayo Ramsdale meelaha wareegaya kubadda khadka dhex Arsenal ayaa ka qaldeen marka goolahayo badana marka kooxdiisa kubadda haysato oo xoogaa boxka oo soo yar dheeraadayo diininta afkeeda ayuu meelaha imaada marka way qaldeen nimankii goolka waa laga dafay waa Ramsdale banaanka wareegaya la arko waa laga dabageeyay qabaal yiraahdaa qaba karto marka nimankii Arsenal goolkaas ayaa ciyaarta looga bareejeeyo ciyaartuna waxay noqotay gool iyo gool inay noqoto oo la yiraahdo farta doontiin qoro extra time aadiya Arsenal xalito nimankii waa la gaaday extra time ayaa inta la aaday kadibna rigoorayaal la gaaray ayaa beerka looga dhacayo xilli nimankii Gunners dhaawacyo hadan ay soo wajahayaan isla ciyaartaas 2 gool darabo way taasidan 2 daafac muhiim way dhaawacmeen Saliba iyo laacibka Tamayusu leeyihiin labadaba dhaawac ay garoonka uga bixin daqiiqadii 9aad iyo daqiiqantii 20aadba marka adoo tartanka laga soo reebay hadana dhaawacyo ku soo galan waa dhibaato
ودبعت كلت وموضوع ماشي سيالة عندنا أرسنال وقتها بريمير ليج أي أترتميانو وحرم إنه كجولستانو هجان كهوريالك أي كرة حسنيان مركا أضياشو حالته لهبين وعن أمهن دون والبا أرسنال ومفعنين مركا نمانكي رجوريال شن يسدح يا لولا ترتك لوجا ساري لوجا فردي حل رجورة وك خساري اللاعب كلي هذا مارتينيلي نكاد أيا لقى سيف جري رجورة marka nimankii xalayto waa lagu kala baxayo sida ayaa tartanka looga saaray bye Arsenal ayaa la yiri meesha waxa ku soo hareen Jamaahiirta United ayo Premier League mataliya kulamada kale la ciyaar waxa kamid ah nimanka Juventus ayaa 2 gool iyo waxba uga soo adkaaday kooxda Freiburg isku celcelisna waxay ku soo baxeen 3 gool iyo waxba marka Frank Kessie oo dhaawac ku soo noqday oo ayaantan kulamada Europe aan ciyaarin ayaana gool dhaliyay xalayto daqiiqadii 90 iyo 2 daqiiqo markii si maraysa 5 daqiiqo lagu diray ayuu goolkiisa yimaad Halaficna gool ayuu dhaliyay oo asiguna rigooro ay asiga ayaa goolash u dhaafray kooxda kubadda cagta ee Juventus marka kooxaha hadda iskugu soo haray tartanka waa kooxaha marka laga tago Arsenal oo meesha laga fiirinay United iyo Juventus marka laga yimaado haatan Arsenal tartanka way macsalaameeyeen bye ayay yiraahdeen marka hadan 8 kooxood Europe League isku soo haatay waa kooxaha Feyenoord Juventus Bayer Leverkusen United Rome Sevilla Sporting iyo Royal Union oo Belgium ah marka haatan meesha waxa ugu cadcad ugu waaweyn labada kooxood ee Juventus iyo Manchester United waxa soo raaca milkiilayaasha koobkan ee Sevilla iyo xarta macallin Mourinho oo sanadkan Conference League qaaday ee Rome iyo Feyenoord Bayer Leverkusen iyo Sporting Lisbon oo ayadana mucjise ah nimankii Arsenal ku soo kala baxeen waraaqyar hadii muuqaalka heshan oo la garay kana subscribe noo sar